kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club oo kamid ah kooxaha horyaalka Soomaaliya Premier League ka qayb galaya fasal ciyaareedkan ayaa diyaar garow adag waxa ay u galeen horyaalka Soomaaliya. Kooxdan kubadda cagta ee Muqdisho City Club waa kooxda xafidanaysa horyaalka Soomaaliya Premier League oo fasal ciyaareedka ugu dambeeyay ku guuleysteen horyaalka. Kooxda Muqdisho City Club waxay la ciyaarayaan maalinta Baritaa kooxda kubadda cagta ee Elman kulanka ugu horeeya horyaalka Soomaaliya. Waxaase kulankaasi seegaya xidigaha kala ah Faisal Xasan Caashi iyo ciyaarahanka lagu magacaabo Anwar Sid Cali Shakunda oo dhawaan gal ah dhawaanna ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club. Kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club oo ah koox awood badan horyaalka Soomaaliya Premier League-na sanadihii ugu dambeeyay wacdara ka dhigaysay ayaa sanadkanna waxa ay doonayaan inay mar kale ku guuleystaan horyaalka Soomaaliya. Tababarkii maanta ee ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club waxaa bixiyay ninka lagu magacaabo Caadil Nuur Cali oo ah macalinka labaad ee kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club. waxaana uu ka warbixiyay xaaladda kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club iyo diyaar garowga ay u galeen horyaalka Soomaaliya. Waa maasantahay brada aan ku maasantahay inaan ugu soo booqatay intadan ugu dambeysay aan ugu diyaar garowna kulanka Elman waana diyaar ayay aniga xidigahayga iyo dhammaan fansiga MCC inaan wajahno kooxda weyn ee Elman bari insha Allah. sidoo kale Caadil oo sii wata hadalkiisa ayaa ka hadlay xaaladda tababaraha koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club Maxamed Masar. macalinka waxaan xanuunsan yahay sida ogtad hergab magaalada ku jiro marka hergabkiya ku dhacay marka alxamdulillah laakiin insha Allah inuu birno ma rajayna. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay kabtanka kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club ninka lagu magacaabo Ciise waxaana kabtanku uu ka warbixiyay xaaladda kooxda Muqdisho City Club iyo fasal ciyaareedkan rajada ay ka qabaan inay ku guuleystaan horyaalka Soomaaliya. Bismillahirrahmanirrahim waan ku dhawahay Gul FM shaqaaleeyay maamulkeeda salaam ugu horeen saa u jeedanay saakii last training ka lahayn oo Baritaa ku wajahleen waana dareemi kartaa koox markay champion ay tahay waxa waaye hamigeedu oo sareeya shaqo badan way sugay inay championka aad difaacanan waa taasna waxa waaye shaqo badan ay u baahan tahay run ahaantii dareemi kartaa saakii ciyaartooy yar ku badnaa teamka saakii ay tababaranay aan gadaal kaga soo biiranay ciyaartooy kalena dibadda ugu maqan yihiin weeyga dambe inay soo gaaraan rajaynayna insha Allah waxa soo dhan juhud waxaan u bixinayna waxay tahay inaan difaacano horyaalka run ahaantii Elman koox weyn waaye oo magaaladan magac weyn ku leh anagana team weyn aan nahay waxa noo dhaxay waa 90 daqiiqo aan ciyaarayna bis nin walba wuxuu jecel yahay inuu guuleysto anagana waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah inaan guuleysano wallahi sanadkan rajada aqabna rajo aad u fiican waaye maadaama ciyaartooyda oo dhameystir ciyaartooyda naga tagtay booskooda aan soo buuxinay ciyaartooy yar yar oo talent leh aan keenay teamka sanadkan horyaalka 100% inaan difaacana rajaynayna insha Allah do Ilaahay si kastaba ha ahaatee kooxaha Elman iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club ayaa ku wada ciyaari doona garoonka Engineer Riso ciyaartaasi oo soo gali doonta 9 saac bar xilliga Geeska Afrika.